cabdilaahi suldaan maxamed oo ku caanbaxay timcadde waxa uu ku dhashay galooley oo ku taal duleedka magaalada gabiley. hooyadii waxay ahayd xabiiba siciid guuleed. cabdilaahi suldaan markuu geeriyooday 1973 wuxuu ahaa 53 jir, saa darteedna waxa uu dhashay taariikhdu markay ahayd 1920. cabdilaahi suldaan waxa uu ka dhashay qoys beeraley ah, waxaanu ahaa madi. wuxuu ku koray degmada galooley oo ay beer ku lahaayeen, halkaas ayuuna ka galay malcamad quraan. cabdilaahi suldaan isagoo weli dhalinyaro ah ayuu tegay dalka Itoobiya, waxaanu inta badan ku noolaa magaalooyinka Adari, Harar iyo Diridhabe. abwaan timcadde waxa uu Itoobiya ku tagay fariin uga timid in adeerkii maxamed dugsiye oo ciidamadii Talyaaniga ka tirsanaa. cabdilaahi suldaan waxay isa sii raaceen laba kale oo ay ilmaadeer ahaayeen. markii ay muddo joogeen magaalada Adari ayuu maxamed dugsiye u yimid. timcadde wuxuu ku daray malcamad quraan uu diinta ka barto. maxamed dugsiye dib ayuu u noqday oo waxa uu sii raacay ciidamadii Talyaaniga ee uu ka tirsanaa. waxoogaa markuu maqnaa isagoo ku sugnaa magaalada Jimca ayuu ciidamo ka soo noqday. fariinna soo faray ahayd inay cabdilaahi suldaan soo kaxeeyaan markay soo noqonayaan. halkii ayuu timcadde uga tegay maxamed dugsiye isagoo ka mid noqday ciidamadii Talyaaniga. ku sinaan 1938 ayuu timcadde ka soo baxay ciidamadii Talyaaniga oo uu degay magaalada Diridhabe oo uu xoogaa ku noolaa. 1940 ayuu cabdilaahi u soo wareegay magaalada Jabuuti oo uu ku noolaa ilaa 1949. cabdilaahi suldaan intii aanu Jabuuti ka imanba wuxuu noqday gabyaaga laga yaqaan golayaasha iyo fagaarayaasha lagu kulmo, gaar ahaan aroosyada oo uu aad uga gebyi jiray sanadihii uu ku sugnaa Jabuuti iyo markuu ka soo wareegayba. cabdilaahi suldaan gabayo bulsho oo kaftan iyo xifaaltanba leh ayuu la wadaagi jiray hal abuurkii ay isku daad ahaayeen, kuwaas oo ay dadku aad u xiiseyn jiray. cabdilaahi suldaan markii uu Jabuuti tagay, halkaas waxay ku kulmeen barni jimcaale oo galgacal xoog leh u galay. tix uu tiriyeyna halkudhigeedu ahaa barni ina jimcaale hele sow bar dahab maaha. cabdilaahi suldaan iyo barni jimcaale waxay ku aqal galeen galooley 1922. barni jimcaale 1954 ay maryan ku curatay guurka timcadde iyo barni jimcaale mar raagin, waxaanay ku kala tegeen magaalada Jabuuti 1927. cabdilaahi suldaan wuxuu si rasmiya uga soo wareegay Jabuuti 1949 isagoo degay galooley oo ay beertoodu ku taalay. 1959 ayuu cabdilaahi mar labaad ku guursaday galooley ardo qalinlacige oo u dhashay 4 hablood iyo wiil, kuwaasoo kala ahaa xaliimo cabdilaahi suldaan, maxamed cabdilaahi suldaan, maka cabdilaahi suldaan iyo nimco cabdilaahi suldaan. cabdilaahi suldaan markuu dalka soo degayba wuxuu ka mid noqday halgankii gobonimo doonka ahaa ee dalka ka hana qaaday. wuxuu markiiba ku biiray ururkii SNL oo ay xaruntiisu ahayd Hargeysa, halkaas oo ay ka soo baxeen gabayadii ugu badnaa ee timcadde ee marxaladda ku beegnaa. 1960 kadib markii gobonimada la qaatay ee la isku daray labadii gobol ee Soomaaliyeed lana sheegay Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed, timcadde waxa uu ka tirsanaan jiray xisbigii la odhan jiray SDU loona yaqaanay Calan Cas. wuxuu ahaa xisbi fikirkiisa bidix ahaa amba u janjeeray dhinaca hanti wadaagga. baryihii dambe ilaa doorashadii 1969 xisbina kama u tirsaneen, waayo markuu arkay sidii wax loo waday iyo sidii xisbiyadu noqdeen wax lagu danaysto uu ka aamin baxay. 1969 markay ciidamadii qalabka siday taladii dalka kula wareegeen inqilaabka, cabdilaahi suldaan dadweynaha Soomaaliyeed ayuu la qaybsaday dareenkii wanaagsanaa ee lagu soo dhaweeyay, iyadoo maamulkii madaniga ahaa laga khatoobay isla markaana laga rajo dhigay. shacbigu way u heelanaayeen isbedel dhaca. ididiilada iyo rajadii dadweynaha gashay waxay ahayd inay wax isbedeli doonaan oo weliba sida ugu roon isu bedeli doonaan. mar saddexaadkii ayuu cabdilaahi suldaan timcadde Hargeysa ku guursaday ardo tukaale 1971, waxaanay u dhashay Samsam cabdilaahi oo kaliya. caruurta timcadde dhalay guud ahaan waa 8 caruur ah, 7 gabdhood iyo wiil. 1971 cabdilaahi suldaan waxaa kusii xumaaday xanuun kaga dhacay cunaha. markii xaaladiisu caafimaad ka soo reyn weyday ayay xukuumaddii militariga ahayd 1972
u dirtay dalka Kenya. Timcadde waxaa la dhigay Kenyatta Hospital oo Nairobi ku yaal. Cabdilaahi Suldaan wax badan ma joogin halkaas, muddo kooban kadibna waxaa lagu soo celiyay Soomaaliya. Cabdilaahi Suldaan wuxuu ku dambeeyay gurigiisii Galoole ku yaalay, halkaas oo ay ku haysay Ardo Qalinliciga oo ahayd xaaskiisii. noloshiisii intii ka harsaneyd inteedii badneydna halkaas ayuu deganaa. Cabdilaahi Suldaan 1972 ayaa laga soo qaaday Galoole oo la geeyay Kalabed, halkaas oo uu ku dhintay 1973 bishii February 7 subaxnimadii ayaa meydkii Timcadde laga soo qaaday Kalabed iyadoo si wanaagsan loo sii galbiyeyna waxaa lagu aasay Gabiley. Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye. Abwaan Timcadde Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye waxaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee lagu xasto gabaygii caanka ahaa ee ka nasiib ka nas maalintii Somaliland gobonimada ay qaadatay 26 June 1960 ayuu gabaygan qiimaha leh ka tiriyay meeshii la isugu yimid ee lagu dejinayay calankii Ingiriiska, goobtaasoo dad aad u badan ay isugu yimaadeen. gabayahanada maalintaas goobjooga ka ah waxaa ka mid ah Qaasim iyo Cabdiidan oo iyaguna ka tiriyay tuxo gabaya ah oo kala gedisan. Cabdilaahi Suldaan Timcadde isagoo ka hadlaya qiimaha xorriyadda iyo calanku leeyahay, dhibaatooyinkii loo soo maray iyo meesha uu kaga yaalo ummadda Somaliland, waxaa gabaygan tiradiisu ahayd 126 bayd, kaasoo uu ka tiriyay goobtii la isugu yimaadeed ee barxadda ahayd ee lagu kala bedelayay labadii calan ee Ingiriiska iyo Somaliland. waxyaabaha kale lagu xasuusto Abwaan Timcadde waxaa ka mid ah gabaygiisii kale caanka ahaa ee dugsi mala qabyaalad waxay dumisay mooyaane. dariiq toosan Soomaaliga ahay waa laga deedeengay darajada Ilaahay ninkii doonaya oo ninka duray diktoorkiyo waxyiga diintii ka qarawye dugsi mala qabyaaladi waxay dumisay mooyaane. kaasoo uu kaga hadlayay khatarta iyo dhibaatooyinka ay ku leedahay Soomaalida qabyaaladu, taasoo nolosha Soomaalida ragaadisay oo saameyn badan ku yeelatay. Abwaan Timcadde waxaa laga qoray buug magaciisu yahay Diiwaanka Maansada Cabdilaahi Suldaan Maxamed Timcadde, kaasoo uu qoray Boobo Yuusuf Ducaale oo uu ku ururiyay maansooyinkiisa oo gaadhaya ilaa 126 maanso. taariikhda iyo nolosha Abwaan Timcadde Ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiye. intaas ayaan kusoo koobinaa barnaamijka. waxaad la socodsiinayay anigoo Ridwaana. intan mid lamid ah ku kulmi doona. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. nabadgelyo.